kusoo dhawaada saaxiibayaal xaqiiqda wararka oo ah youtuber si aad uga shaqeeya xogta rasmiga ah ee maalin walba soo gudbiya degdeg kusoo dhawaada saaxiibayaal aqalka rasmiga ah ee Nadiira Nuuris oo maanta oo taariikhdu tahay 16 bishii 7 2020 ka dhacay caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho kadib markii ay soo cagadhigatay Somaliland caasimadda Hargeysa. Nadiira Nuuris ayaa ka badbaaday xadhig lala damacsanaa in lagu xidho jeel ka mid ah jeelalka Hargeysa. Nadiira Nuuris waxay ismehersadeen 2 bilood ka hor fanaan aad u yar oo u da'yar oo lagu magacaabo Caydiid Jawhar oo ka mid ah xidigaha ugu shidan Muqdisho isla waqtigaas xaadirkana loogu jecel yahay. Nadiira Nuuris ayaa iyadu 5 sano ka hor fankeeda kasoo bilowday magaalada caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho kadib markii ay halkaa kusoo shactirooyinkeeda kusoo gudbisay ayna fankeeda aad uga soo muuqday baraha bulshada qaybaha YouTube-ka iyo Facebook-ka. Nadiira Nuuris ayaa caan ka ah imanka ummadda Soomaaliyeed meel kastoo afka Soomaaliga laga hadlo heesaheeduna saameyn weyn bay ku yeeshaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo Nadiira Nuuris leedahay taanti ay kusoo gudbiso shactirooyinka ama niikada waxa loo yaqaano taasoo Soomaalida in yar ka taqaano hababka Nadiira Nuuris ay fankeedu kor u kordhay. Waxaa 2018 ayuu fankeedu aad u soo baxay. Nadiira Nuuris waa fanaanad caan uga geyga Soomaaliyeed taas oo ay heesaheedu saameyn weyn ku yeeshaan shanta Soomaali. Nadiira Nuuris sidoo kale waxay iyaduna kusoo gudbisaa heesaheeda qaybo talent leh oo ummadda Soomaaliyeed ay jecleystaan. Kadib marka ay Nadiira Nuuris taawanayaan kama dhacdo heesihii hore ee Sahra Ilays iyo fanaaniintii hore ee Soomaaliyeed. Haddaba daawadayaal wax naga xasuusina in haddii aad ku cusubtay kanaalka xaqiiqda wararka aad subscribe saarto gambaleelkana aad ku dhufato si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada rasmiga ah ee halkan soo gelino. Wixii faallooyin dambe ee ka soo baxa wararka dambe ayaan niiga qaada dhigi doonaa daawadayaal. Subscribe-ta iyo like iyo share-ta waa dhankiina.